kamida tartamada ugu xiisaha badan iyadoo sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore waliba lagu arkay isbedelo aad u fara badan City ololaheeda championka way bilaabato mid kamid ah kooxaha sanadkan loo soo daalinayo koobkan maadaama ay haystaan shax dhameystiran macallin championkan aad u yaqaan wata Pep Guardiola dhaliyaha goolalinta ku wanaagsan Erling Haaland oo dhanka weerarka u joogo laakiin xalay shakadaas waa laga diiday oo City wax walba ay sameysay laakiin Inter ayaa noqoto koox difaaceeda qadkeeda dhexe weerarkeeda uu bir ahaa wax walba ay sameeyaan City waa agmari weysay ciyaartaasi ayaa noqotay mid gool aan iska dhalin barbaro eber ku soo dhamaata kooxda Inter Yanni Sommer ayaa shabaq u ilaalinaya oo qaatay bandhiga ugu wanaagsanaa ee garoonka xidigan oo qiimeynta 7.4 ka gaaray garoonka oo ahaaba xidigii ugu badnaa garoonka xidigaha ku jira qiimeynta kuwooda ugu wanaagsan ayaa noqday shabaq ilaaliyaha kooxda Inter Bastoni Acerbi iyo Yannick Bisek in lagu magacaabo ayaa saddexda difaac u ciyaaray Inter Straniski Hakan Hakanoglu iyo Nicola Barella oo hogaaminaya kooxda Inter ayaa qadka dhexe ku wada jira halka Augusto Darmian ciyaaryahan Mark Thuram Mahdi Taremi iyo dhanka weerarka u ciyaareen kooxda Internazionale inta badanna Inter waxay sameynaysaa qadka dhexe aad ay u soo buuxdhaafisay taa u diiday ama u diiday Manchester City in kooxdaasi si fudud gool kaga dhaliso Pep Guardiola wuxuu la soo shirtay goolahay Ederson Akanji Diaz Gvardiol Luis Rodri Zavinho Silva De Bruyne iyo Grealish weerarkan Erling Haaland ayuu ahaa laakiin sheekadaasi Haaland waa laga diiday xalaq qiimeyntii ugu hooseysay ayuu qaatay xidigan ciyaartooyda garoonka ku jirta ee qaataan maadaama uu helay 5.7 oo qayb ka ah ciyaartooyda ugu bandhiga hooseeyay ciyaartan soo bandhigaasi aad ka hooseeyay Acerbi ciyaarta kadib wuxuu yiri waxaan maaliyada weydiistay Erling Haaland laakiin oo iga diiday yiri daafaca kooxda Inter Milan lambarka 15 u xiran oo xalay ninka carab badan ayaa haysay muusan ka gaarin in ciyaaryahan uu maaliyad siiyo waana lagu magacaabo Erling Haaland bandhiga aad ay u sareeyay taa oo qayb ka ahayd kulamadii ugu adkaa ee xal la daawaday tartanka UEFA Champions League kooxuhun ay ciyaareen 100% Inter ayaa bandhig wanaagsan soo bandhigtay halka kooxda Manchester City iyadana wax walba u sameysay in ay wax uun sameyso Gundogan iyo Phil Foden ayaa qaybtii labaad ciyaarta soo galay kuwa iyagana bandhig wanaagsan sameeyay Doku asan 80 daqiiqo ciyaar mareysa ayuu soo galay Kevin ayaa ka dhaawacma kooxda aan la ogeyn sida dhaawaciis noqon doono ayaa ciyaarta laga saaray taa niyad ku noqon karta Pep iyo wiilashiisa maadaama Premier League kulan adag ay ciyaari doonaan toddobaadka Arsenal wajihi doonaan Henry Mkhitaryan Lautaro Martinez Pavard Dumfries ciyaartooy Vertezi ayaa ka qayb qaatay ciyaarta qaybaheedii dambe kuwa oo bedel ku soo galay kooxahani kulamada kulankooda Manchester City 60% iyada ayaa wanaagsan positionka halka 40 kooxda kale ay qaadatay shuudadkii ugu badnaa ee ciyaartii la isku riday 22 iyo tuureen Man City 13 kooxda Inter taa oo qayb ka ahayd in ay isku weerareen labada kooxoodba goolahay Sommer aad iyo wanaagsanaa 5 badbaadin ayuu sameeyay halka goolahay City uu sameeyay 3 badbaadin taa oo qayb ka ahayd bandhiga labada goolahay ay sameeyeen 651 baas ayay sameeyeen kooxda City 430 waxa sameysay kooxda Internazionale 9 qalad ayay galeen kooxda Inter 12 Man City ayaa gashay hal jaal ay qaateen Man City Inter wax jaal amaysan qaadan taa oo laga fahmi karo in ciyaar deganaan ay ku soo galeen isi tartiib ah in ay u ciyaaraan oo aan buuq badan ku jirin sida ay ahaayeen kulankii Manchester City kulamadii kale ciyaar Spartak Braha 3 gool Salzburg ayaa ka adkaatay 5 gool ayagu awood sheegteen kooxda Celtic 5 gool waxay u dhiibeen kooxda Slavia koox lagu magacaabo Slovan Club Brugge xal waa lagu baashaalay Borussia ayaa ku baashaasho 3 gool u dhiibtay waliba 3-0 iyo gurigooda jooga Paris gool eber Girona ayaa ugu awood sheegteen oo ka socotay horyaalka dalka Talyaaniga horyaalka dalka Spain aan idaaday taa oo qayb ka ahayd bandhiga kooxda Paris sanadkan ay sameynayaan inta badan ciyaartooyda muhiimka ayaa garoonka ugu jiray kooxda PSG sanadkan doonaysa oo la wanaagsan kulamada xalay la ciyaaray kuwa ahaayeen caawa balansan iyo sheekadu tahay kulamada caawa aad ay u xiiso badan yihiin kooxda Arsenal iyo Atlanta ololahooda ay bilaaban doonaan kooxda Arsenal taa oo qayb ka Champions League sanadkan waxyaabaha cajiibka lagu arkay in kooxaha ay qaab horyaal u ciyaarayaan afar kulan gurigooda ku ciyaari doonaan afar kulanna kooxda banaanka iyo ku ciyaari doonta kooxda Arsenal macalinkeeda Mikel Arteta waxa wax laga weydiinayaa dhaawacyada ciyaartooyda sida ninka lagu magacaabo Martin Odegaard
oo xaaladiisa xidigaasi aan la ogeyn maadaama dhaawac uu ku maqnaa. Arteta wuxuu xaqiijiyay Odegaard in muddo maqnaan doono garoomada sabab la xiriira dhaawac halis ah oo gasoo gaara kuraanta. xidiga reer Norway ayaa ku dhaawacmay waajibaadka xulka qaranka fasaxii xulalka. Arsenal ayaa qarisay halista dhaawac ilaa haatan ee xidiga Mikel Arteta ugu dambeyn xaqiijiyay dhaawac laacibkan kadib baaritaanadii ugu dambeeyay ayaa muujiyay ayaa leeyahay xoogaa dhaawac gaar ahaan mid ka mid ah seedaha kuraanta ayuu yiri Arteta. ma sheegi karo waqtiga uu maqnaan doono sababtoo ah dhakhtar ani miihi laakiin waa dhaawac weyn ayuu yiri ninka lagu magacaabo Arteta. wuxuu naga maqnaan doonaa in muddo ayuu sii raaciyay laakiin waqti rasmi ah muusan sheegin hogaamiyaha Spain ee maamula kooxda Gunners. Arsenal waxay wajihi doontaa kooxda Atlanta waana mid ka mid ah kulamada indhaha lagu hayn doono. Atlanta waxay ku guuleysteen tartanka Europa League qaab la yaab leh ayna kaga soo qaadeen kooxda Bayer Leverkusen laakiin xilligan sheekada ayaa ah in championka la joogo aysan ahayn halkan tartanka Europa League. kooxdan ciyaartooy wanaagsan ayaa u jooga sida Adama Lugman oo qayb ka ciyaartooyda ugu wanaagsan ee istaan kooxdan. waxaa ka dhaawacan Rafa Tolo iyo Brand Godfrey nin lagu magacaabo. Arsenal waxaa dhaawac kaga maqan Mikel Merino, Sanjengo, Tierney, Odegaard, Timiazo, Calafiori oo isna tababarkii lagu arkay maalmihii ugu dambeeyay ama shalayba tababar ku soo laabtay laakiin aan la ogeyn halka uu ka heli karo ama uu ka soo gali karo kooxda Arsenal. Odegaard dhaawiciisa ayaana ah oo dinta ku taagan kooxda Arsenal ee taageerayaashooda maadaama uu ahaa ciyaaryahan muhiim u ah dhan walbana aad ugu muhiimsan. Arsenal ayaa muhiimad siin doonta ayaa leeyahay kulankan iyadoo wajahaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City toddobaadka xiga horyaalka Premier League. Arteta dhankiisa wuxuu aad u doonayaa 7 maalmood gudahood kulamada la ciyaarayo. guushii Tottenham ay ka soo gaareen North London Derby axadii soo ciyaareen inay la ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee Atlanta ay sii wajahaan kooxda Premier League difaacanaysa ee Manchester City ku tilmaamay jadwal aad u mashquul badan. City ay wajahayaan Arsenal waa loo soo hormariyay kulankooda xal ayay ciyaareen taa ka dhigan Arsenal in dhibaato u tahay in hal maalin ay ka sii dambeeyaan nasiinan ay u baahnaayeen waa sida hogaamiyaha uu sheegay. Arsenal bandhigooda waa la arki doonaa caaw sida uu noqdo iyadoo kulankaasi uu yahay kulan taageerayaashu intooda badan ay leeyihiin waa midkii aan Arsenal championka wacdare kaga dhigi lahayd. Arsenal laacibkeeda Calafiori waxaa leeyahay garoomada iyo dib ugu soo laabtay kahor kulamada maadaama dhaawac uu ahaa. Arsenal ayaa tartanka champion ku bilaabanaysa iyadoo Atlanta wajahaysa. Calafiori, Bukayo Saka iyo shak ku jirta maanshooda kadib markii midkood gebi ahaan uu sheegeen kulankii Tottenham ama xidigaasi difaaca uu sheegay kulankii Tottenham halka mid kalena oo dhaawac kaga baxay waa Saka. laakiin wuxuu muuqataa in Arsenal ciyaarsiin karto xidigaha Calafiori iyo Bukayo Saka kulanka Atlanta labada xidig ayna ka soo muuqato tababar kooxdooda kahor kulanka caawa ay wajihi doonaan kooxda Talyaaniga. wala arki doonaa Gunners iyo caawa waxa ay sameeyaan.